بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. aad baad nagu mahad celinayna runtii ka soo qayb galka shirkan muhiimka oo laga tashanayo dalkan sidaynu ugu horumarin lahayn si dalkan uu helo runtii way ka fursan weyday intiina halka fadhida oo runtii wajigeena aad wada garanayo oo ah ragga aqoonyahanka beeraha inaan maanta isku kin yeedho saynu uga wada arinsano ama uga wada tashano si dalkeena aynu uga soo saari lahayn inta ku filan waxaad ogtihiin xisbiga kulmiye oo maanta hogaaminaya madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ololihii iyo ballanqaadadii iyo barnaamijka xisbiga markaad eegtaan inta waxay ku soo ururiyeen inta badan oo ballanqaadkayga u badnaa markaan marayna goobaha fagaarayaasha oo dadka shacabka reer Soomaaliland u sheegnay in dalkan uu baahan yahay inta ku filan in dalkan loo soo saaro dadka loo soo saaro inta ku filan dadkan marka rabaan in waxaan rabno inaynu wax soo saarno dhow shay baa loo baahan yahay alxamdulillah rabbil caalamiin intina waynu haysanaa number 1 waxa nabadgeliyo qofku inuu nabadgeliyo haysto number 2 waxa aynu dhulkeen wax ka beeri lahayn waynu haysanaa alxamdulillah biyo waynu haysanaa roob inagu filan baa inoo daa wadamada adduunyada waxa jira wadamo ay maalin qura roob gudoo laakiin haddana inta maalintu daada hagaajiso wax soo saaro kala soo baxa anfac dalkooda waxaad ogtihiin wadankeena roob baa muddo badan bilaha markuu inoo bilaamo 3 bilood 4 bilood ama 2 bilood ama roob badan baa inoo daa roobkaasi maanta oo kale markuu doo birina waxay naga galaa baddu toos u tagaa wax soo saar ma sameeyno haddaba maadaama aynu hayno dalkii maadaama aynu dhulkii hayno maadaama aynu biyo hayno maadaama aynu hayno dadkii aynu hayno maxaynu wax soo saar lahayn maxaynu dalkeena marti ugu nahay ee aynu soo saar lahayn cunto waxaad ogtiin boqolkiiba 90 dibadda waxay nooga imanayaan iska daa wax kale tamaada cuntada lagu darayo iyo waxay nooga yimaadaan wadamada jaalka sida Itoobiya oo kale marka waxaan isku kin yeeray intiina aan ku tumhay in aad tiin ragii aqoonta u lahaa beeraha rag aqoonyahana in aad maskaxdiina ku jisaan oo halka kulankiina Soomaaliya aan ugu talagalnay socon doono 3 maalmood maanta iyo bariya saanta maanta khamiista inoo saaxiibna doona hadii la yiraahdo qorshahay ugu yahay in halka ay nooga soo aad maskaxda tuujisaan oo aad ka tuujisaan maskaxdiina wixii aad barteen way dadku wax soo saar karleen waxa wixii jira in soo anaguna ka xisbi ahaan ka wasaarad ahaan ka dawlad ahaan halka waxa ka soo baxa ayaan hadii la yiraahdo anagoo waafajinayna barnaamijka xisbiga iyo ballanqaadka madaxweynaha halkaasaan doonayna marka inaanu ka sii wado hadii la ina gaarsiiyo waqti marka waxa la inaga rabaa inaad maskaxda tuujisaan qorshe fog qorshe dhow iyo mid dhexe iyo mid fog maanta halka inaga soo baxa waxay u badantihiin raggaan arkay beerley baad u badantihiin oo rag badan oo halkan kulamo gaar aan gelinkii dambe yeelano fara badan baa fadhiya ama bari ha ka yimaada ama galbeed way joogaan maanta rag beerley way joogaan waxaynu u baahannahay dalkeena inaynu wixii wax ka bedelo waxaynu inaynu naga noqon hadal la hadlo inuu noqon laakiin waxaynu taabanin maanta doonayna intaan meelna gaarsiiyaba halkan maxamed baa garab fadhiya oo aad arkaysaan raggii maanta dalkan ku faaniyay marka ragga maxamed iyo noociina iyo intiinaas marka halka soo fadhiisataan bulshada reer Soomaaliland caawa markay daawato waxay naga sugaysaa khamiista wax anfaca gala oo aynu dadkeenii aynu xaaladii hore wax ka bedelo waxaad arkaysaa wadamada sida imika Itoobiya kale buur dushood baa la beeraa oo gali laga beeraa inaguna banaanka inuu beeri kar laana sababta inagu waxa inaynu wax beeri kar laanahay anu markaan daraasad sameeyay intii wasaaradda aan joogay waxay ka geyn weyday inaan intiina noo aqoonyahan oo khubara oo beeraha aqoon leh inaan isku kin yeero dabadna inaan tashano dabadna isku hogaamino dalka sida wax uga bedelay xaaladda maanta ku jiro ayaynu yaan runtii shirkan maanta ku saabsan yahay aan waan nifraya shirku ay nifraya 3 cisho maskaxda la tuujinaya
maskaxda la tuujiyo waxa ka soo baxay wasaaradda beeruhu ku caawin doonta haddii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin ilaa 30 daqiiqo dib baan ugu soo noqon doonaa aad baan mahadsantihiin